nin la yiraahdo Axmed oo maalqabeena oo reer Djibouti anu isaan u hayweeyaan anu reer Djibouti oo jamhuuriyadda Djibouti u dhashay kuna dhashay waraaqadaha dalkan haysta لأن الجيبوتيان نمدو وسيلة كنديان نمدا قف كستي أو غير جيبوتي وحلا يقعنا قفكو وحول جيبوتيان كون نقدا سيدا كو قرن قانون كجنسية جيبوتي لبا الرماد بكون نقدا إنو جيبوتيان نقدا وحكون نقدا إنو جيبوتي كل شيء مركا جيبوتي كل التي واحد ليس حق الأرض حق الإقليم دولكي تكون راتي جيبوتيان كون نقطين إيه واحد كوها ليس حق التجنس إن جنسية دي لقصيو أو لقو أقبله أو ماملكو وكسيو جنسية وكسيو وحضانيو marka qof kasti oo jinsiyada reer Djibouti haysta annaka agteeda waxa uu naqaanaa inuu yahay qof reer Djibouti marka ninka Axmed ee la isku haysto ee khilaafku ka dhex taagan yahay beel kamida beelaha Somaliland iyo xukuumadda Djibouti annaka waxaan aaminsanahay inuu yahay nin reer Djibouti ko ninkan inta aanan ka sheekeyn khilaafka isaga iyo dowladda dhex yaala waxaan jecelahay inaan tilmaamo horta Axmed maaha qof aan la garanayn waa qof la yaqaano qof xunna maaha dad fara badan oo dhalinyarada soo badhayaan nin xun oo wax boobay oo saana maaha laakiin Axmed wuxuu ahaa nin aabihi xoolo lahaa isaguna xoolihii aabihi uu ka dhaxlay kadib sii dhaqdhaqay oo xoolihiisii ka sii shaqaystay buu ahaa arinta go'aan arinta weerar arinta labaad Axmed si uu xoolo u yeesho Djibouti waxa jira si aad xoolo u yeelatid waa inaad laba arrimood samaysid inaad nidaamka la heshiisid waa ko nidaamkuna waa laba qof waa Ismaaciil Cumar iyo xaaskiisa iyo inaad nidaamka aan la heshiin laakiin aanad ka hor iman haddaad ka hor imanna kuma deynayaane laakiin wax yar bay ku ogolaanayaan isagoo wuxuu qaatay qaraarka inuu nidaamka la shaqaysto marka xoolaha Axmed nidaamka uu la shaqaystay arinta muhiimka wax weeyaan Axmed marka uu Axmed lacagtan uu ku dhisay warshada Coca-Cola banka BCE uu amaahinayay wuxuu ku amaahiyay laba arrimood daraadeed arinta koobaad waxa weeyaan Axmed oo lacag leh oo shirkado badan Djibouti ku leh laba Axmed oo damaano adag haysta damiinka koobaadina wuxuu ahaa banka loo yaqaan Bank National oo madax ka ahaa ninkii dhintay Ilaahay naxariisto ee haweenka madaxweynaha amba xaaska madaxweynaha ama marwada koobaad ee Djibouti Khadra Xayd walaalkeed ahaa ayaa banka damaano ka noqday si lacagta inta leeg loo siiyo okay lacagtii waa la siiyay waxaad ogtihiin markii la furayay warshada Coca-Cola ee magaalada Hargeysa laga furayay waxay ahayd warshad ay fureen labada qaranka Somaliland maamulkiisa iyo qaranka Djibouti maamulkiisa waxa shirka joogay 7 wasiir markii la furayay qaarkood magacooda way sheegayaan waxa kamid ah Ali Cabdi oo markaa wasiirka wuxuu ahaa ittisaalaadka communicationka waxa tagay wasiirkii cadaaladda oo Ali Adnaan ahaa waxa tagay wasiirka imika difaaca marka موجود wuxuu ahaan jiray Xasan waxa tagay wasiir caynkaas u badan waxa tagay madax waaweyn oo qaarkood yihiin maartay dejiye yihiin oo director general yihiin waxa tagay rag macruufa oo taariikhda Djibouti maamulka ka agdhow Haashim baa kamid aha waxa tagay dumar aad u fara badan 3 diyaaradood ayaa ka kacday Djibouti oo buuxda oo magaalada Hargeysa tagtay oo maamulka Djibouti uu diray si loo furo sharikadaas looga soo qayb gal waxaana kamid aha hogaamiyihii Ilaahay naxariiste banka dhexe xukuumay in xayd ayaa isaguna halka joogay oo tagay oo hogaaminay khudbadii la jeedinay dhamaan waxa loo mahadnaqay in xayd markii dib wixii loogu noqday taariikh loogu noqdo idan waxa weeyaan Axmed marka uu heshiis wuxuu lahaa nidaamku lahaa lacagtana si uu helo systemku la heshiiyay laakiin khilaafkan weyn ee dhacay maxaa keenay dadka halka soo looga bilaabaya khilaafkan laba shay ba keenay khilaafka waxa keenay laba shay maaha saddex shay wax keenay laba shay ba keenay waxa weeyaan khilaafka waxay haweeneyda madaxweynuhu aaminsanayd in xayd Ilaahay naxariistay ee lacagtiisii uu banka dhexe ka qaadi jiray iyadana uu ka qaadayay isagana uu ka qaadayay inuu ku darsaday rag beesha isaaqa u dhashay oo dhamaantoodba la haysto oo la leeyahay lacagtii in xayd halkan soo dhiga waxa kamid ah dadka lacagta lagu haysto ninkana kamid ah marka Axmed waxa lagu haystaa waxa weeyaan lacagtaas aad qaaday soo celi walaalkii uu ku dhiibtay اعلامك لغما oran karo daacadaha lagama sheeg karo laakiin hada hiya xaqiiqa arinta labaad waxa weeyaan ee la isku haysto ikhwaani fillah oo inaad garatina maadaama aqli loo baahan yahay in wax la taxliiliyo waxa la diri
wixii imika iska dhaafo waxan baan kula yeelano isaguna taas buu wax ka qabay yeelashada iyo wax ka qabay arintaas marka sida loo sawiro anigu ma rabo inaan gala tafaasiisheeda anigu waxaan aaminsanahay haddii ay jirto maxkamad Jabuuti cadaalada oo xeerkeegu uu ka xoray oo sultadeedu powerkeegu ka xor yahay maxaa la dhahdaa dowladda ama maamulka uu ka xor yahay waxaan oran lahaa Axmed hala keeno maxkamadda Jabuuti lian Axmed oo reer Jabuuti weeyaan okay uu noqon karaa reer Hargeysana oo reer Somaliland maxaa yeelay qofku waa loo ogol yahay waxa dhado double nationality waxaa jira dadka looyarada iyo xeer yaqaanku anu jiish baan ahaan jiray qaadi baan ahay takhasuskayna waa qaanuun waxaa la dhiraahdaa waxaa jirta waxa marka qofka maxkamadda taagayo ma waxaa la eegi meeshuu dembigu ka dhacay mise jinsiyadii qofku uu sitay markuu dembigu dhacay baa la eegi waxaa jirta waxa dhado التنازع القوانين waxa qawaaniintu markay isku dirayaan qof sidii maxkamad loo taagi lahaa buuq badan baa ka taagan madrasado badan baa ka jira aaraab badan baa ka jirta waxaan la akhrinayo maarata sanba sax wax kama jiraan aaraadu way badan yihiin mid baa la rajaxaa waxaana anu aan rajaxaa qofka waxaa la eegayaa meeshii ay jariimadu ka dhacday okay laakiin maxkamadda Jabuuti maxorba maxkamadda Jabuuti ma xor Jabuuti maxkamadii kama jirto Jabuuti waxaa ka jirta dawlad ninku urursan qofka uu nacana uu xidhaa qofku jecel yahayna wadanku ku sii daaya wuxuu doonu sameeyaa marka haday cadaalad jirto waxaan oran lahayn alla keeno cadaalad hala taago maxkamadda Jabuuti Cabdiraxmaan Boore maxkamadda taagtay Cabdiraxmaan Boore khalad waa lagu qaban karaa waana lagu haysan karaa in kasta maxkamadda Ingiriisku tii khalad lagu haysto laakiin haddana waa lagu haysan karaa laakiin iyo haysan karaa maxkamadda cadaaladda maxkamadda Jabuuti 9 meelood bay ku xukuntay Cabdiraxmaan Boore in la xidho 15 sanadood xoolihiisina la wareego maxkamadda Jabuutina inta uu ku xukumi doontaa isagoo maqan Axmed kadibna waxay ordaytaa xoolihii waa la wareegay waa saaw maxkamad xor ma aha waa maxkamadda annaka markii aan culimada ahayna soo taagtay ee been sheegtay ee sanad iyo 6 bilood nagu xukuntay bilaa hadal ninkiina xukumay na waxa laga dhigay markii reedba wasiir ba laga dhigay marka Jabuuti ma aha maxkamad xor ah oo Axmed la geyn karo ma aha okay Faransiiskana lama geyn karo de jariimadani Faransiiska ma dhicin waxa la isku haystay haday jirto mutaham wuxuu ku yahay Faransiiska ma dhicin okay Somaliland waxay ku leeyihiin dawladda ictiraafsan yahay ma aha laakiin Somaliland waxay leedahay anagu maxkamadda waa taagi karnaa okay dadkiisuna waxay leeyihiin xaqan ha lagu taago waan difaacayna xaq bayna u leeyihiin inay hadalka ay ku hadlaan laakiin su'aashu wax weeyaan anigu waxaan isweydiinayaa su'aasha madaxweyne Ismaaciil Umar Geele inta qof ee uu muddo 8 sanadood uu isku dayay inuu soo qabto uu ku fashilmay baa nitirnaya horta waxaan ka soo bilaabaynaa ninka la yiraahdo maaragtay xaqani reer Jabuuti oo lagu qabtay Yaman oo ciidanka Jabuuti ahaan jiray oo Araba Yamani asalkiisu yahay laakiin waa reer Jabuuti markhaatina ka ah qadiyadii Boore maaragtay muxuu ahaa Borel ka ninka safiirka ka ahaan jiray magaalada Sanca وإمك كأ ذلك مصر محمد ظهور للعضو إياه نكاس دولة قبطي ولا قبطي كديبنا ننكي وحو أرد كوكا سفارة جرمالكا سفارة جرمالكا وحو تصيلوا يهينين أوروبيانا ورين بلجيكا سيدا دلاديد با كديب لوسو بدبادي وكوفا شلمي أرنتاس وحا أقوه الرئي نكا لادو أحمد دين إلاو نحرستين oo mas Yaman isna lagu qabtay intii fruitka koornays oo Ismaaciil Umar Geele uu diray safir meesha ka ahaa isagana waa la badbaadiyay una baxay waxa kale oo ku xigtay oo saddexaysa oo laba halkaasi waxa saddexaysa in uu Cabdiraxmaan Boore laba meelood ku qabtay oo uu soo dhiibay yiri marka hore wuxuu ku qabtay magaalada Spain buu ku qabtay Madrid wuxuu u dhiibay maaragtay qoladan la yiraahdo maaragtay maxaa dhahdaa booliiska la yiraahdo محمد مقعيس بوليسكي العالمي يو ديبي انتربولك marka booliiskaasi markii loo dhiibay waa la qabtay Cabdiraxmaan Boore kadibna waxa lagu waayay wala soo siiday hadana magaalada Yaman waxa lagu qabtay Imaaraadka Abu Dhabi waxa lagu hayay 3 cisho waa la siiday waxa hadana ku xigtay Maxamed Daahir Roble buu ku qabsaday laba jeer loo yacday iyo ka daba tagay intuu isagu qaaday waraqadii ka qaaday oo tuuray oo lagu tuuray lacab iyo hadana ciidan laga daba diray mukhabarada Maxamed Daahir abtiyaashi iyo tolkiiba badbaadiyay way la baxsadeen ilaa iyo waxa la geeyay magaalada dhahdo Istanbul kadib Istanbul buu ka daba tagay Istanbul buu hadana ku soo qaban gaaray
ilaahay baa ka bixiyey tabaaraka wa tacaala isagoo habeenkii laafduubayo diyaaradda soo raacinayo shacbigii baa soo booday waa laga qabtay dowladdiina turkiguna waxay tiri war waxaan ka meeraysa waryahay ninkan waxba ma sameyne maanta waxaa loo yimid axmed inaa habeen madow la qaado dadkiisiibaa waxaa arkay iyakaa la baxsaday oo waxay geeyeen meelaha beeshiisu ay ku badan tahay ee magaalada hargeysa oo lagu ilaalinaya iminka idan waxa weya ninkani xoolihii dalka wuxuu geliyey inuu dad daba ordo bini aadan uu siduu usoo qaban lahaa uu u keeni lahaa arrintan waxaa keenay waxa weeyaan marka iminka fashilantay arrinta madaxweynaha furiidka ya gadame oo uu doonayay in uu soo qaado uu soo hooyo maxkamadihiiba waxa iska diidan markuu arkay inuu taa ku fashilan yahay iyuu furay dooseegan amba malafkan maaragtay iminka ku socda walaalkeen axmed amba inanka axmed dhacdo markuu qadhamo ku fashilmay marka gadhacame isagana uu ku guuleysan kari waayey inuu soo qaado maxaa yeelay qadiyadiisu waa qadiyad caadila oonan aan hayn qadiyad yar oo meel dhow laga soo qaadi karo dad bini aadana daba soco oo soo qaqabo wuxuu geliyey xoolihii dalka oo dhan ismaaciil cumar geelle marka dadka reer jabuuti markay akrinayaan inay kolba xabad akrinin qaarna dadka qaarkood waxay akrinayaan qadiyad yaroo dhow waxay odhanayaan maadaama ay qoladaasi jawaabaysa annaguna haddaan reer hebel reer quracman annagoo reer dhagax u jawaabaynaa in dadka la wareeriye maaha mushkiladdu waxa weeye war dalkan ismaaciil cumar geelle iyo khadraxay bay ku ciyaarayaan waxay ka dhigteen riwaayad iyo masraxiyad lacagtiisii waxay ka dhigteen waxay kaloo maxkamad geeyaan oo malaayiin lagu cuno dadkiina gaajo iyo faqri ayaa dilay marka qofkan waa inuu waxaan iska dhaafo oo loo tallaabo dalkan badbaadadiisuna waxay ku xidhan tahay in la helo maxkamad cadaalada haddaan helo cabdiraxmaan buurana waa la keeni axmedna waa la keeni qof kasti oo reer jabuuti wax lagu haystana waa la keeni ismaaciil cumarna waa la keeni khadraxaydna waa la keeni xoolaha oo dhan baa halkaabaa la wada keeni maxkamadda cadaaladda ummadda u dhaxayni oo qof walba oo qof wax ku haysto halkaabaa la keeni maxkamad cadaalad ha leero oo qofna uu qof ka sarrayn wayna jireen maxkamadda cadaaladii dadka reer jabuuti waxaan ku weeninayaa inay ka baxaan dooda ah annagu haddaan ree hebel nahay kaasi waa ree hebel waa filan lay samaynayo oo waqtiga in laga ridayo arrinta labaad waxa weeye dalkan badbaadadiisu waxay ku xidhan tahay in aan fiirino siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan noqono tafkiirka dhinaca fikriga muxamediyiin inaan noqono oon aan noqonin qabyaalidismi inaan noqono inaan meel hoose aan ka sheekin oo noqono dad sare oo meel sare ka hadlaya marka taas waxay na tusaysaa war somaliland soomaaliya iyo jabuuti waa dad walaala ah dowladuhu masaalix bay leeyihin antares bay leeyihin maanta waa heshiis berina way isku ammaanayaan kuwan caayaya iminka ismaaciil cumar shalay way ammaanayeen berina way ammaani doonaan ismaaciil cumar kuwa ammaanaya ee caayaya maaragtay arab caayaya beritoole waxay arki doonaan ismaaciiloo ugu yeedhay aqalkiisa oo salaadiintii carab la sheekaysanaya marka maxaad oran doontaa marka siyaasaddu inayna waalin caruuroobina ee kor u kaca oo qadiyadda waxaad u aragti inay tahay qadiyatu xaqin wa baatil inay tahay qadiyaddu wadan iyo qof marka kolba qof baa la qabsanayaa qofkani meesha lagu garan lahaa inuu baadil sido waa maxkamad cadaalada maxkamadda cadaaladda jabuuti kama jirto maxkamadda hargeysa ka cadaalad badan ta xamar baa ka cadaalad badan ta puntland baa ka cadaalad badan ta dirdha baa ka cadaalad badan ta jigjigaa ka cadaalad badan ta addis ababa ka cadaalad badan waxa weeyaan iyada iyo waxaa isku mid ah ta eritrea iyo suudaan baa isku mid ah intaaba waxaa haysta mid duqyaana oo isdictaateera oo siduu yidhaahdo dadka loo xakumo hadduu ku dhahdo 10 sano xadhig 10 sano lagu xadhig ninkii maxaa yaratay jabha la oran jiray wuxuu ku dhintay xabsiga isaga oo laga soo qaaday buuraha okay jabhadiisii waa la heshiiyey isaga maxaa loo dagaalamaya muxuu sameeyey maxaa loo dilay muxuu gaajo ugu dhintay maxaa dawo loogu diiday maxaa maxkamadda loo geeni waayey muxuu u yidhi wasiirka ra-iisul wasaaruhu waa bilaa waraaqo haddana muxuu u haysta hadduu bilaa waraaqo yahay markii lasoo dhigay isaga oo garab jooga maaragtay axmed diini heshiiskii laga gelay ag joogana waa jabuusiyaan buu ahaa dadka waa la warinaya masaakiinta waa la warinaya ninkaasi xabsi buu ku dhintay taariikhday u taallaa waa la xisaabtami doonaa waxaan wax la iloobi doona maaha markaas shalay markii odayaashii hadleen ay yidhahdeen war buldhoqo dhibaata ka dhacday war hansla eegno waa la xidhay sakaraad baa laga dhigay dhibaataa loo geystay iminkana waa lasoo sii daayay haddana waa la celi doonaa waa lasoo sii dayn doonaa waxaan si looga baxo waa inaan xal loo helo waa inaan muxamediyiin noqono sala allahu calayhi wasalam waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جزاكم الله خير وما سنتهين أدمني سلام يا إن شاء الله تقبل الله منا أخلاق دا كم أبتر ستيدي أخلاق دا كو أبتر ستا
إذن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. أحمد شوقي رحمه الله markuu nabigu dhashay dunidoo dhan baa iftay zamankuna afbuu yeeshay kadibna wuxuu bilaabay zamanku iyo waqtigu inuu ammaano uuna dhowla cadeeyo uu qoslo liajli rasuul calayhi salaatu wasalaam. idan nabigu sala allahu calayhi wasalam insaan kaamil u ahaa. ilaahay marka uu soo saaray nebiga waxaa la siiyey qiraa'o. waxaa lagu yihi yaa rasuul allah, adigu ma tihid qofkii ugu horreeyey ee taariikhda soo mara ee diinta islaamka iyo bini aadanka u dagaalama. waxaa kaaga horeeyey nebi aadan ilaa iyo nebi ciise. walihaada waxaa lagu yihi taariikhdooda akhri. ilahay wuxuu ka nebi maxamed taariikhda ambiyada akhri. anaa kugu sheegaya qur-aanka laga soo buuxiyey sulusul qur'aan taariikh. qur-aanka marka saddex loo qeybiyo waa qisas iyo taariikh. limaada? lianno bini aadanku waxay sameeyaan waa wax soo noqnoqdo weeyaan. waa tashaabahat quluubuhum atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun. marka dadku way soo noqnoqdaan oo taariikhdu yuciidu nafsahu way soo celisaa. maadaama ay sidaa tahay si looga hortagayana xuluushu waa inay isku ekaato maahine waa inaa lagala soo baxo cibro. walihaada buu ilaahay nabiga ka yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum iqtadih. nebi muxamedow ilaahay wuxuu hanuuniyey dadkaas aad aragtay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu hanuuniyey ambiyada intaa leeg. adi maxaa markaa kugu waajiba? hanuunkay hanuunsameen ku dayaa lagu yidhi, raac baa lagu yidhi nabiga sal slam. idan nebigu wuxuu raacay ambiyadii, mid waliba wuxuu ku cadiimahaa buu kala soo baxay, taariikhdoodii buu akhriyey. annakana markaa maxay nagu waajiba? inaan isaga ku dayano. isagii baa lagu soo ururiyey, waxay u bixiyeen culummadu altajriba annabawiya, experiencekii nebinimada waxaa lagu kulansiiyey sala allahu calayhi wasalam. okay, nebiga saas baan u diraasaynaa. lihaada nadrusuhu naqra'ahu. laakiin ta ugu dambaysa waxa weeyaan nebiga natalamasu fiihi, waxaan ka dhex doondoonaynaa taariikhdiisii alxuluul, solishinaan ka doondoonaynaa. ninka rabaa ee qoys leh ee buuqsan nebi maxamed taarikhdiisa ha barto. ninka mashaakil psychologicala iyo psychologia iyo nafsi ay hayaan, nebi maxamed taarikhdiisa ha doondoono. mar badan bay ku dhaceen mashaakil oo lagu yidhi laa taxzan, ha murugoon lagu yidhi, ha quusan lagu yidhi, ha cabsan lagu yidhi. nebiga waxaa la tusay solisyoonno ayaa la siiyey. qofka ay haystaan mashaakil dhaqaale ah, nebi maxamed bay qabsatay mashaakil dhaqaale ah. sida uga baxay nebiga ina baray sala allahu calayh wasalam. 4 bilood bay caasha tiri yaan biyo timir cunaynay. shuhuur bilaadna soo marayey aan cunto cunayn waxaan ahayn biyo timir. idan wuxuu kaga baxayey broblemyada nebigu maxay ahayd sala allah alay wasalam dhinaca dhaqaalaha ah. nebiga waxaa qabsaday mashaakil siyaasiyo adag baa qabsaday. qaswat laxzaab waxaa qabsatay xaadisat lisraa walmicraaj wixii ku horey daa'if, dhibaatooyin waaweyn baa qabsaday. siduu uga baxay nebigu calayh salaatu wasalaam. idan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam haddaad rabtid jamiicu lmashaakil inaad ka baxdid, isaga akhri. natalamasu fii siiratihi sala allahu calayhi wasalam. siiradiisa waxaan ka doondoonaynaa dhexdeeda waxa weeye waa xal iyo solution. uma akhrinayno inaan nebiga akhrino uun, ma ammaanayno nebiga inaan ammaano uun, ma jeclaanayna faqad nebiga inaan jeclaano uun. waan jeclaanaynaa, laakiin waxaan u jecelnahay waxa weeye liannahu waa munqid, waa badbaadiye sala allahu calayhi wasalam. waxaan inii soo ururiyey, waxaan akhriyey rag badan oo aqoon-yahana oo reer yuruba, maraykan leh, kanada leh, oo nebi moxamed diraaso cilmiga ku sameeyey. nebi moxamed muxuu yahay? nebi moxamed sal ll ly salam ma wadaadba, ma darwiish yaroo miskiinoo miskiid fadhiyo oo la shidaari karo ah? nebi moxamed sal lla ly salama ma tuugba, ma waraaba, ma dadlaaya? nebi moxamed ma libaax dadka cunaa? nebi moxamed ma dhigdaadiya? nebi moxamedi ma mujrimba sala allahu alay wasalam walciyaadu billah? nebi moxamed sal salama muxuu ahaa nebi moxamed? maada kaana rasuulullah? diraaso cilmiyaa lagu sameeyey. nebiga sal salam dadka nebiga diraaseeyay waxay u kala baxaan ee mustashriqiintu 3 qolo. mustashriq waxaa la dhahdaa, horta saan u fahno, orientalist baa dhahdaa, orientalism baa cilmiga dhahdaa. raggan orientalistiga ee muslimka baadha, taariikhda bariga baadha, taariikhda waa reer galbeed, waxay baadhaan taariikhda bariga. sharqi baa ku jira, istishraaq baa dhahdaa, waa cilmiga lagu baadho taariikhda dadka reer bariga, dhaqankooga, diintooda, fikirkooga, gaar ahaan muslimiinta yaa la baadhaa. waxaa jira dad dhan oo culamaa oo ku takhasusa soomaalida, oromada, canfarta, adarida,
وأنك نحن كتخصصا إن كرديدا كتخصصا عربتا كتخصصا لهجات كعربتا كتخصص قرآنك كتخصص حديث كالنبي كتخصص فقه كتخصص فلسفة مثلا فيلسوفيا مستشرقين تجربلكم waxay aad ugu takhasusan quraanka iyo adabka carabiga mustashriqiinta ingiriisku qaarkood xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam mustashriqiinta faransiisku falsafada islaamka waxa kada bay isku baahiyaan si ay u fahmaan marka limaada yadrusuun saddex qolo u kala baxeen qolo waxay noqotay mustashriq muaadiya adu ah oo ku dhamaysanaya istiwaarkiisa isagoo adu ah ninka raad Edward Said oo ahaa nin Falastiiniyo Kristana oo Mareykanka ka dhigi jiray professor jaamacad ka ahaa oo kutub badan istishraaqa ka qoray iyo qoray waxaas arinta iyo kitaab yar oo Mustafa Subaaci rahimahullah oo ka qoray al-istishraaq wal mustashriqun ma lahum ma alayhim waxa qodol labaad waa mustashriqiinta in iyakum muhaajidka laysu muslimiin walaysu a'daa ma islaaman aduna ma noqdaan kuwaas baa maanta isla diraaseen kuwa baan ugu badan marka dambe qolada saddexaad waxa dhahdaa المستشرقون الذين أسلموا ومستشرقين مركز دنب إسلاما إسلامكو إبهار وكسميو سيدة تورستوي فيلسوفكي وينا ودن كروشكا أوكي كواس بان مركي النبي أخريين أي بارين أي كدبتاقين أي تاريخ دي سر هروغين أي سيرة دي سر أخريين وحي كسو صارين نبي محمد إنو يهي صلى الله عليه وسلم نبي جمع بين محاصن موسى ومزايا عيسى عليه السلام نبي محمدي وحو اسكو كاني وناجيدي نبي موسى يوحو قارك لها نبي عيسى لماذا؟ نبي موسى وحوها إنسان شديد البأس دقاليهنا وحوها من رقا اسكدبا وحوها من حوق بدن وإنسانية دي سوأيتهي إن أونن ضدك أونن وكعبس محببا نبي عيسى عليه السلام وحوها إنسان متصرمي قف أخلاق له روحانية dadka oo haduu qofku dirbaaxo dhinaca kale u dhiganay wuxuu oranay ifcal ma tashaa khud mali ma shi'ta maalkayga waxa dooni ka qaado laakiin ibxath illa ilahi baad saas buu oranay idan waxay dhahdeen nabi ciise wuxuu ahaa ruuxiyun khalis nabi muuse wuxuu ahaa insaaniyun khalis idan nabi muhammad wuxuu ahaa alayhi salaam wuxuu ahaa labadaaba isku keenay jamaa bayna al malhamati wal marhama naxariis wuxuu ahaa xad aan lahayn raganimada iyo cadow iska dhacana حد ملهين نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو دغالكو دحايو صفك هرو جوغي مركن حريص لو باهن يهينا وحوها رحمه ان حد لهين صلى الله عليه وسلم الهي وحوري وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ودادده waxaa jira qaar soo saara nabi maxamed naxariistiisa laakiin qariya raganimada nabi maxamed waxaa jira wadaadada qaar nabi maxamed geesnimadiisa soo saara iyo suucadu way iska dhicinay laakiin qariya naxariistiisa نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبضوا منا لما قارن كرو هذا بقى إخواني في الله فيلسوف كإنجليز كإل رادو توماس كارليل وهو قرأ كتاب وبحيي الأبطال جيس يدي تاريخ الصومري جيس يلبدن بكورمي كتاب كيسا وحو كوير وفي صلاة عقل كو إيغا فكرة فكو إيغا مسكح بسر كو إيغا إندر نول نكو إيغا هذا الكيساس وحولي لقد أصبح وحا نقضي وحا لليابو من العار عار وحا نقضي عيب وحا نقضي على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر قف كستي أو البحر أو عصر لما تنول إن أو دقيشتو أن يسقي إن أو دقيشتو وحا أي شاقيان جاهلين تحاقدين تا دين تا إسلام كبين كشاقيان قفكم مركو علمي ليه هل كاسو قاريا مركي ونكي إن هولندية بلابي إنو نبي عايو وweeraro uu diinta caayo uu kadibna bilaabay inuu quraanka akhriyo iyo xadiiska nabiga uu islaamay wuxuu markaa sheekhan leeyahay isaga koor buu qoray 10 sano wuxuu leeyahay ceeb bay noqotay inuu qof dhageysta maanta inuu nabi maxamed dadka been u sheegi jiray alayhi salaatu wasalaam wa anna muhammadan laysa binabiyin nabi maxamed nabi maaha hadii lagu yiraahdo ha dhageysan buu wa inna alayna waxa nagu waajiba inaan la dagaalano haddaad maqalla hadalada noocaas oo kale taa هذا الكاس وحيري توماس كارليل إخواني في الله توماس كارليل وحان إيري وفيلسوف وأقونيهن إنجليز كودشي وحاجر مستشرق أورينتاليست إنجليز كنديانا ورد الدكتور زويمر كتابه قري وأبحيه الشرق وعاداته برقة يدقندو ده
sharqigan aan degannahay muslimiintu ay degan yihiin iyo caadooyinka muslimiintu ay leeyihiin ama dadka kale muslimiinta la nool ayuu baaray cilmi baaris buu ku sameeyey waa professor jaamacadaha ka dhiga wuxuu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa walaa shaka uuna shaki ku jirin min acdami alquwaad almuslimiin addiiniyiin hogaamiyaasha muslimiinta ee diiniga ee taarikhda soo maray wuxuu yidhi waxaa wayusdaqu calayhi alqowl waxaana run noqonaya aydan weliba intaa marka aan sheegay waxaa run iga noqonaya inaan idhaahdo inuu ahaa nebi moxamed sal slama nin muslixan qadiiran waa nin wax hagaajinayo muslixa formatera reform samaynaya reformatera oo wax hagaajinaya oo weliba qadiira kartile wabaliigan fasiixan nin wuxuu ahaa hal abuur leh oo yaqaana sida bini aadamka loola hadlo fasiixa luqadiisu ay fasiix tahay wajarii'an miqwaaran wuxuu ahaa buri geesi soo majeystaa wamufakiran cadiiman wuxuuna ahaa caqli weyn sala allahu calayhi wasalam nabigeenna sal slam waxaa ninkaasi waxaan idhi waa zuwaymar waa mustashriq waa aqoonyahan u dhashay wadankan canada filosofka ingiriiska dhahda bernardshaw oo la wada yaqaano isaga kitaab buu leeyahay dhahdo muxamed kitaabkiisa waxa magaciisa muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alcaalama adduunku axwaju maa yakuun wuxuu maanta ugu baahi badan yahay maanta wuxuu ugu baahi badan yahay ilaa rajuli nin fii tafkiiri muxamed sidii muxamed u fikiraya siduu maxamed sal slama solution u helayay nin u heli karaya ma aha miskiin meel iska fadhiyo adduunku suu socdo aan garanayn maaha ma aha wadaad yar oo islaamaha intuu $100 ka qaato qur-aan ku akhriyo o dhahdo waagtaa diintu waxaa dadka ugu sheekeeya maaha nin sidii nebi moxamed u fikiraya u fikiro oo solution wada yaa loo baahan yahay buu ihi sal slam wuxuu ihi hada nabiyu nebigani wadaca diinahu daa'iman diintiisa wuxuu dhigay mawdica alixtiraami walijlaal meel la ixtiraamo oo la weyneeyo waxa cajiiba maanta yurub waxaa ka socota islamofobi cabsi weyn baa ka jirta laakiin filosofiyadoodii qarnigii labaatanaad ina dhaafay bartamihiisii markuu cilmigu cilkaa marayay san bay u hadlayeen wuxuu leeyahay diinta nebi moxamed buu sheegay wuxuu ihi fainaha aqwa diin waa diinta ugu culus ee karti u leh inay diinaha kaleeto oo dhan calaliso khaalidan waa diin waaraysu ihi khuluud alabad intuu waqtigu jiri jiro dhan ilaa qiyaamuhu dhacayo khuluud alabad bun abad weligeed buu jiraysaa diintani maaha xadiis maaha qur'aan waa nin filosofa bernardshaw dhahdo oo ingiriis ah okay caalim faransiisa oo aqoonyahan weyna oo sadio luis la dhahdo luis wuxuu yidhi isaguna low lam yakun muxamedun nabiy alcarab nebi maxamed nebi carbeed ma ahayn nebi loo soo diray kuwii geela iyo adhiga iyo lo-da la joogay ee miyiga joogay saxraaga noolaa ee carabtaha maaha buu ihi faxasba maaha buu ihi rajulan yubashiru alcarab maaha nin carab uu hadaynayay ma ahayn bal wuxuu ahaa lilcaalam adduunkao dhan buu la hadlayay low ansafahu nnaas dadku hadday ku hadlaan cadaalad buu ihi si cadaalada haddaan u hadallo nebi moxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam hada alcabqariy alfad cabqarigaa weyn ayuu ahaa waxa cajiiba waxa weeye halkan haddana inoo yaalo caalimka filosofka amba hal abuurkii weynaa ee la oran jiray maaragtay tolstoy waa ruush waxay dhahdaan culummadu u islaameen markuu akhriyey kitaab yar oon ciyaalkiinoo dhigtaan oo dhahda xadiis 40 isagoo xadiis 40 wuxuu ku akhrinaya caqli iyo cilmi xadiis 40 ku akhriyey 42 xadiis weeyaan imaam nawawi baa ururiyey inama alacmaalu binniyaat buu ka bilaabay ilaa uu dhammeynaya xadiisaantii u wada akhriyey kadibna wuxuu sheegay wuxuu yihi waxani waa tawsiyaatu muslix nin hogaaminaya adduunka waanooyinkuu qoray weeyaan buri sal allah alay salam markaas buu islaamay waad ogtihiinna inuu ku dhintay isagoo meelaha jiifa oo miskiina cilmigii uu qoray oo dhanna bini aadamku siiyey ma iibin jirin kutubtiisa wuxuu yihi ninkaasi hadalka